annagoo ka mid ah madaxda xisbiga wadani madaxda sare xisbiga wadani waxaan halkan kaga hadlaynaa maanta qodob gaar ah baan ku hadlaynaa qodobkaas oo ah xadhig argagixisnimo ahaan loogu qaaday gudoomiyihii gobolka Awdal Cabdikariim Maxamed Maal oo runtii aanu aad uga xunahay qaabka lagu wajahay ama loo weeray ama lagu qabtay aad iyo aad baan u cambaaraynaynaa waxaan leenahay Cabdikariim nin qaabka istaahila maaha sida loo qabtayna waan ka xunahay waxa kale oo ka horeeyay xildhibaan Maxamed Faarax Dheerayste oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii deegaanka ee Awdal Boorama oo isagana sidaas oo kale gardarro lagu xidhay marka waxaad moodaa gardarrooyin baryahan ka socda gobolkan Awdal oo uu meeleegayo oo ka dambeeyo ninka la yiraahdo Saylici ayaa ka dambeeya oo markuu waayay tiqadii gobolka markuu waayay inuu dadka gobolka ugaarsado oo saldhiga ku ururiyo ama jeelka ku ururiyo ayuu u soo banbaxay laakiin taa heli maayo rag waa la xidhaa wax kale way gaadhaan laakiin guul laguma helo xarig guul lagu heli maayo waxa weeyaan nabaddu ee danbay noo wada tahay laakiin ninkii nabadda deyn waaye ee carqaladeeya nabadda waa Saylici inta ku xeeran weeyaan ee bal saabka halka jooga ka mid yahay ee wasiirka arrimaha guud ka mid yahay ayaa labada khaladba aanu u qaadaynaa inay iyagu ka dambeeyaan inay iyagu dadka caburin ku hayaan iyagu nin hadla ay diidayaan inuu cidina hadasho marka waan cambaaraynaynaa waxana soo jeedinaynaa nabadgelyadu dalkoo dhan bay u dan tahay Awdal la nabadgelyadeedu waa muhiim weeyaan laakiin haddii xukuumaddii talada haysay hadday carqaladaynayso xumaanta waday colaada wado oo dadka ay kicinayso deeyada cirka roobkoog waxaan leenahay arrinka hal laga noqdo baan leenahay nimanka xidhan ee Cabdikariim Maxamed Maal gudoomiyihii gobolka Awdal ee xisbiga wadani iyo xildhibaan Dheerayste oo xasaanadii xildhibaannimo haysta huwan ayaa jeelka labadaba loo diray arrinka waanu ka xunahay waxaan leenahay sida ugu dhaqsaha badan ha loo sii daayo haddii loo sii dayn waayana raagi meeysan ku raagi maayaan meesha dadka tasan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sallallahu alayhi wa sallam anigoo ku hadlaya magaca gudoomiyaasha gobolada Somaliland lixda gobol anigoo ku hadlaya magacooda ahna gudoomiyaha gobolka Sanaag waxaan halkan ku cambaaraynaynaa dhammaan xadhiga lagula kacay gudoomiyaha iyagii gobolka Awdal Cabdiraxmaan Cabdikariim Maal waxaanu leenahay Cabdikariim waa gudoomiye gobol oo xisbiga wadaniga waxaanu leenahay waxa laale wixii arinta xadhigiisa ku saabsan waa in si sharciga waafaqsan faraha looga qaado Cabdikariim haddii gobol iyo xisbigu matalayaay waxa la kala riixanayaana waa kursi haddii uu badiyay dhaqdhaqaaqa haddii uu badiyay dhaliilaha inuu sheego dawladdu ay dhaliilayo waxaan u maleynayaa inaanay qaban in la xidho waxaan leeyahay isaga iyo xildhibaanka kale ee gudoomiye ku-xigeenka degmada ahaan jiray labadaba waa in loo soo celiyo xornimadoodii waxbaa la kala riixanayaa waa la isdhaliilayaa waa la isku dhilayaa ninkii aan xamili karaynow ha adeegsan dawladnimada maanta dhisan ee weliba curdinka ah waxaad adeegsataa inaad bulshada u soo bandhigto inaad bulshada wax u qabateen ama wax u qabanaysaan haddaydan kari karayn waxaan leenahay waanu idinku dhilaynaa ama badhasaaba ahaada ama wasiir ahaada ama ahaada kuwa in xaadaya dalka ee hantidii qaranka oo dhan gacanta marinaya qarinna mayno xarigna ka biqi mayno maanta haddaad talada haysaan berritaanu qabanaynaa waxaanu idin leenahay
bulshada waxay idinku raacdo soo bandhiga dhaliishiina inaanu sheegnayna mucaarad baanu nahay hadday isleedin dhaliishiina wala qarinayaan cid wax allaale wixii dhaliishiina dhan baanu sheegaynaa kuwa ugu xunxun baanu soo bandhigaynaa wax allaale waxaanu kursiga idinkaga qaadaynana waanu soo bandhigaynaa waxaanu ummadda ku kaxaysanana waanu soo bandhigaynaa ha cabaadin oo xadhig iyo biliis ha dalbanina bulshada wixii aad laydinku igmaday baa laydinka fadhiyaa intaasaan kusoo gabagabeynaya siyaasiyiinta xisbiga wadana waxaa sheegteen maayarku loo dowlad waxna waa wax shacab ah haddii macnaheeda la yidhaahdo ciidan shisheeyaa la sheego su-aalahaasi way xidhan yihiin way dhammaatay sheekada uga xunnahay in la xidhxidho dadka mas-uuliyiinta dadka shacabka ah in la iscaburiyo maanta Somaliland waxay Somaliland ku tahay freedom of speech xorriyatul qowl waxba la iska sheegi karaa waxa weeye xukuumaddu waa taxta almajhar qofku sida loo hoos dhigo marka bacteria la baarayo loo hoos dhiga slide-ka microscope-ka yaa loo hoos dhigaa wixii khalad ay leeyihiin oo la sheegi karaa waayo waxa doorashaynu galay doorashaduna waxa weeye shacabkii baa doortay shacabkuna wixii khalad ay jira in la sheego way in la isku caburiyo maaha gobolka xaalad baa laga abuurayaa xildhibaanku xasaanad buu leeyahay xasaanadiisa haddii la xiray maxkamad la taagin laga qaado way in la xiro ma isagoo xasaanadii leh gudoomiyaha xusbiga maalna wuxuu leeyahay isaguna mas'uuliyad baa haya xusbigu u matalaa gobol u matalaa waxa weeye waxa sameeya oo qori waxa weeye open letter waa la isku diraa adduunka warqad furan madaxweynaha ku socotay inta ku socoto inuu yiraahdo madaxweyne gobolka waxa ninkaad u soo dirtay bara saabka ahaa ma shaqeeyo summer time buu fadhiyaa wax ceebo ku jirta ma jirto waa open letter baa la yiraahdaa ama media la iska arka ha mariyo ama kala akhriya ha la mariyo waa la isku mariyaa adduunka marka waqtigii la is caburinayay la is xidayay waan ka baxnay Somaliland maanta inay ku noqoto dictatoriyad iyo in ninka la soo doortay ee madaxweyne ku xigeenka uu noqon taliye booliis stationka oo halka maamula telefoonka haystana wax laga aad looga khajilo weey markaan waxaan leenahay annagu oon codsanaynaa dhawaq dheer gobolka yaan xaalad laga abuurin dadka yaan la kicinin inamadaha la sii daayo ma istaahilaan inay jeelka ku jiraan inta. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.